بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا وأستاذ سعيد. عشرة بوجي ماركتينج مانجمنت. ما أنتم حنقادنينا عطب كشناد أما chapter 5. chapter كان وحنكو بردونا وحيالا بدن أيان كو بردونا chapter كان وحنكو بردونا وحيالها أضم دحاتك وأه سوقينت sida qancinta macaamiisha oo ah customer satisfaction. waxaan ku baran doonaa qiimeynta macaamiinta customer value, iyo waxaan ku baran doonaa customerka oo daacad kuu noqdo. qof kasta ereyga daacadnimada badanaa dadka waxay u bartaan marka lamaanaha, oo ragga waxay jecel yihiin haweentooda inay u noqoto daacad, haweentana sidoo kale waxay jecel yihiin inuu ninkeeda u noqdo nin daacad ah. sidoo kale shirkadahana waxay jecel yihiin macaamiisha inay u noqdaan daacad. marka sidee lagu gaari karaa loyalty, daacadnimo? marka waxaan ereyo badan oo kala duwan oo halka dhig u ah fahamka suuqgeynta ayaan baran doonaa. soo dhawaada dhammaantiin. waxyaalaha aan ku baran doono sidaan hore u sheegno waxaa waaye su-aasha koowaad aan baran doono waxaa waaye what are customer value, satisfaction, loyalty and how companies deliver them? sidee shirkadaha ay waxyaalahaas u sameeyaan. wax kaloo baran doona asagana waxaa kamid ah wax la dhaho what is the lifetime value of customers? macaamiisha waxa ay laga rabo inay gaaraan mustaqbalka maxaa waaye. faa'iidada macaamiisha laga helayo sidee loo badi karaa. shirkadaha sidee usoo jiidan karaan ama ay u haysan karaan. laba shay waaya, attract soo jiidasho and retain haysasho. marka inaad macaamiil soo jiidatid waa wax dhib badan, laakiin waxaa ka sahlan inaad haysatid. maxaa yeelay inaad macaamiil soo jiidato waa wax aad u dhib badan. marka maxaa ka sahlan retention. kastamarada la haysanayo kastamar kasta ma ahaya. kastamarka xun in liska daaya ayaa fiican, laakiin kastamarka la rabo waxaa waaye right customer, kastamarka aad faa'iidada ka helaysid. profitable customer aa lahaa, kastamarka faa'iidada laga helayo kastamarkaas ayaa la rabaa. iyo haddii aad leedahay databasekaas horena usoo sheegnay chapter 3 ayaan kusoo sheegnay. waxaa waaye macluumaadka, kaydka macluumaadkaaga xaggee keensan kartaa. iyadana waxaa waaye arrin aad iyo aad u muhiim ah. marka customer value qiimeynta macaamiisha, satisfaction iyo oo ah qancinta macaamiisha, loyalty iyo daacadnimada macaamiisha. marka wax aad u weyn waaye saddexdaas shay. bini aadamka oo dhan noloshiisa ayay ku xirantahay, oo ah hadda markaad qof qiimeysid muxuu qofkaasi noqonaa daacaduu kuu noqonaa. intaasoo daacad kuu noqon ka hor maxaa ka horreeya inuu kuu qanco marka hore. marka shirkadaha oo dhan marka ay macaamiishooda qiimeeyaan, marka sidee macaamiishaada u qiimeyn kartaa. si aad macaamiishaada u qiimeysid wax badanaa ku hoos jiro. ereygan markaad fiirisid waa erey simple ah, customer value. jaamacadaha badanaa iyo meelaha baraha wax lagu barto dadka sidii la rabay oo u xeel dheer lagu baro, gaar ahaan soomaalida. marka customer value haddii lagu dhaho oo tarjumaad caadi lagu saaro oo lagu dhaho qiimeynta macaamiisha, wax iska laga faa'iida male. laakiin meeshan waxaa waaye labada shay oo dambe ayadaa ka horeysa. hadda meeshan fiiri, satisfaction oo ah macaamiilkii oo qanacsan, iyo loyalty macaamiilkii oo daacad ku ah, waxaa ka horeeya inaad macaamiilka qiimeysid. su-aasha la isweydiinayo waxay tahay sideed macaamiilka qiimeyn u sii kartaa. how can you give a customer value? by giving customer value maxaa waaye customerka horta marka inaad ogaatid waxa uu yahay, kadibna waxyaalaha uu jecel yahay aad u diyaargariso. shirkado for example shirkad A to Z company ayaa waxay sameysaa furniture, waa shirkad furniture sameyso, ama shirkad sameyso wax la dhaho agabka guryaha sida jiifka, fadhiga, waxyaalahaas sameysaa, daahyada, joodariyaasha, waxyaalahaas dhan ayay sameysaa. shirkadaas waxay rabtaa inay macaamiisheeda qiimeyso. barnaamijkan ayay soo baratay, marka waxay rabtaa inay maxay sameyn kartaa, sidee macaamiisheeda u qiimeyn kartaa. si ay macaamiisheeda u qiimeyso, shirkadan waxay sameyneysaa wax la dhaho waxay sameyneysaa inay dadka u geyso guryahooda alaabta u rakibto
kadibna ay dhahdo haddaad guurtiin xataa alaabta anaka idiin fureyno idiina dejinayno lacag la-aana muddo 3 sano ama 4 sano. dhalinta hadda guursanaysa markay yar yihiin waxaa hubaala badankooda waxay ku guursadeen guryo kira ah. guryaha kiradana ama qofka guri iskale kaa bixinayo ama adiga isbedel dalbanayo, marka maxaa ku qasbanan tahay in alaabtii furfuratid. marka that's why mar kasta had iyo jeer alaabaha cusub oo loo yaqaano soomaalida dhahan badanaa esterada ama alaabta aan wadanka lagu sameynay dibadda laga keeno iyadoo kartoomo ku jiro inta la keeno guri lagu xirxiro, alaabta noocaasa marka koowaad mar labaadka markii la xirxiro wax badan ayaa iska bedelaya. hadduu shirkadii aa kasoo gadato aysan ahayn qofka furo, shirkadda maxay sameyn kartaa hadduu bool dhumo bool ay kugu bedeleysaa, hadduu wax labo kale kugu bedeleysaa. marka shirkadaas maxaa la dhihi karaa, waxaa la dhihi karaa shirkadaas macaamiisheeda ayay qiimeysay. for example qof wuxuu dhinac wuxuu iska leeyahay meesha tinta lagu jarto barber shop ama balbeeri ayuu leeyahay, timo jare ayuu leeyahay. timo jarahaasi ayuu qofka wuxuu ugu talagal macaamiisha inuu u sameeyo AC ugu xiro. AC-gaas marka ama mukeefkaas qofka meesha uu ku xirayo muxuu ugu talagalay macaamiishiisa ayuu qiimeynaa. marka had iyo jeer markaad business leedahay ama ganacsi markaad leedahay waa inaad ku fakartid dhanka macaamiisha aad ku fakartid. kadib ayaa waxaa imaanaysaa waxyaalaha ka lacagta. haddii laakiin lacagta kaa hor muuqato, suuqgeynta had iyo jeer waa asaaska shirkadda lacagta kasoo gelayso. laakiin marka qofka uu qof yahay suuqgeyaha shirkadda markuu yahay oo madaxa suuqgeynta shirkadda yahay, wuxuu u fakiraa dhanka macaamiisha ayuu u fakiraa. shirkaddan macaamiisheed maxay rabtaa uu ka fakiraa, ma ka fakiraayo dhanka kale. wuxuu aad uga fakiraa shirkadda maxay rabtaa horta, shirkadda macaamiisheeda maxay rabaan. dhanka kale jaamacadaad aad leedahay, waxaa rabtaa inaad ardaydaadii oo macaamiilku ee customerkaaga inaad siisid, waxaa u baahanta marka holol fiican, kalar fiican, rinji fiican aad ka marisid, geeda aad ku abuurtid. waxaas oo dhan maxaa waaye ardayda macaamiishaada ayaad qiimeyneysaa. ardaydii macaamiisha markaad qiimeysid, dhanka kale maxaa helaysaa, waxaa helaysaa wax la dhaho satisfaction oo ah qanacsanaan. oo ardaydii maxaa ku dhacayo, way ku qancayaan oo waxay ku qancayaan wax la dhaho waxay ku qancayaan shirkaddii. kadibna shirkad daacad ay u noqonayaan. bini aadamka dad badan waxaa jira waxyaala qaarkood daacad u ah. maxaa kalifay, marka shirkadda dhankeeda ka imaatay kama imaan macaamiisha. bini aadamka qof wax iska jeclaanayo, qofka wax daacad muu noqonayo waa marka horna wax ku qancaa, marka wax ku qanca kabacdi ayuu daacad u noqonaa. marka saddexdan shay isku xiran waa 3 shay oo aasaasi u ah suuqgeynta. marka inaan saas u fahanno ayaa had iyo jeer muhiim ah. customer value oo ah macaamilka in la qiimeeyo. waxyaalo badan aa ku qiimeyn karta, badanaa macaamiisha wax lagu qiimeynayo waa wax dheeraad ah aysan haysan shirkadaha kale. hadda shirkadda hormuud oo kale markay suuqa soo galaysay 3 shirkadood kala 2 shirkadood kala jirto ugu yaraan ama 3 shirkadood. Samaphone xilligaas waa shaqeynaysa, muqdishoan ka hadlaynaa maadaama aniga ahaan qof muqdisho joogo oo caasimadda Soomaaliya. sidoo kalena Puntland waxaa laga dhahaa Golis, Somaliland waxaa laga dhahaa Telesom. marka 3 shirkadood markay suuq qabsanayeen, marka suuq waa lala haystay, Leashlink ayaa joogtay iyo sidoo kale waxaa joogtay Telecom Soomaaliya. maxaa dheeraysiiyey, maxay u noqotay shirkad ka horeysa tartanka. 3 qof markay tartamayaan orodada, ninka oo murqaha waaweyn leh oo jilibkiisa muruq weyn ku leh muruqa weyn ee hormuud iyo Telesom iyo Golis dhaafta maxuu noqday, waxaa la dhaho ama Zaad ama EVC Plus. EVC Plus ka oo koonfurta laga dhaho iyo Puntland iyo Somaliland Zaad laga dhaho, dadweynaha wax badan u taraa. sidoo kale shirkadda dhankeedana dadweynaha lacag kama qaado, waa free. marka badanaa customer value-ga waa wax lacag la-aana. macaamiisha lacag uma fadhiyo, laakiin la tartamayaashaada ma haystaan. waxaa ka mid ah customer value qofka shirkadda u shaqeeya inuu dhoola caddeeyo. dhoola caddeyntaadi lacag ma kaa gadan tahay, maya. waxyaalo badan oo adiga lacag kaa gadnayn, macaamiilkan lacag gadnayn ayaa la rabaa wax dheeraada dad kalena aysan haysan. hadda Somtel ayaa keentay idahab. that's why Somtel maanta ay tahay shirkadda labaad oo xagga isgaarsiinta Soomaaliya, ayna tahay shirkad aad loo isticmaalo internetkeeda hadday tahay bangiyadeeda iyo waxay isku xiran yihiin. maxaa yeele waxay soo kordhisay wax macquul, wax iska dhacaya ma jirto. wax qof iska qancaya ma jirto oo ku dhahay shirkaddan iska qanca aniga. waxaan ku qanacsanahay shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines, waxaan ku qanacsanahay maqaayad hebel. wax iska qancaya male, waa shirkadda dhankeeda inay ka imaato qiimeyn macaamiisha wax dheeraad u samayso, meesha ay qurxiso,
waxyaalo badan u sameys oo sheegaya bini'aadanka wax fariigay jecel yihiin macaamiisha had iyo jeer wax lacag la'aan ay jecel yihiin wax qof in la qiimeeyo jecel yihiin macaamiisha in la koolkooliyo ayay jecel yihiin marka taas ayay keenayso marka waqtiga ugu badan oo arkaysin waxaan ku bixinay hal slide-ka ugu horreeyaan ku bixinay kadib waxaa imaanaya satisfaction macaamiisha kadib ayay qancayaan waa step 2 step 1 maxaa waaye in macaamiilka marka hore la qiimeeyo wax dheeraada loo siiyo waxyaalo badan la siiyo kadibna waxaa imaanaysa loyalty qofkan waxa inuu ku dhag mara ku dhag uu noqdo soo maha dhanka socialka markii la fiirsho oo cilmiga bulshada markii la fiirsho macalinka markuu ardaydiisa qiimeeyo oo macalin ardayda qiimeeyo noqdo oo wax dheeraada cashiro dheeraada siiyo si gooni ula hadlo waxyaalo kale loo dirsan oo dheeraada extra curriculum activities wax la hayo wax ka baxsan cashirkii loogu talagala uu siiyo ardayda maxaa dhacaya way ku qancayaan kadib macalinkaas daacad ayuu noqonayaan xaajiga markuu xaajidiisa wax u sameeyo oo qiimeeyo fiiriya xaajigan xaajidiisa wuu qiimeeyaa kabacdi maxaa sameynaya ayadaa ku qancayso daacaday noqonaysaa ayadana sidoo kale markay xaajigeeda qiimeyso wuu ku qancaa daacaduna uu noqonaa marka waxaa waaye give and get wax bixi kadibna aad heshideen ma fahamte nothing is free in lagugu qanco daacadna lagugu noqdo it will not come from free wax beenbeen iska imaanaya male waa inaad marka hore wax adi aad samaysid waa inaad ka bilowdo wax waan ku dheeraada qaybtaas qaybta labaad waxaan ka hadlaynaa sidai shirkadaha marka hore ahaa jireen iyo sida ay hadda yihiin arrintan aad ay muhiim u tahay waxa laga hadlayo waxay tahay traditional organization shirkadaha waa maamulka shirkadaha marka hore sida uu ahay iyadoo loo fiirinayo customer oriented organization shirkadaha maanta sida ay yihiin annaka Soomaali haddaan nahay traditional ayaa hadda noo ah buugga wuxuu aaminsan yahay in dad shirkadihii dhan ay ka baxeen oo cilmigii horumar horta laakiin anaga sidaan nahay shirkadaha maxay ku kala duwan yihiin shirkadihii hore iyo shirkadaha modern casri oo ah customer oriented maxay ku kala duwan yihiin labadan shay waxay ku kala duwan yihiin labadan shay arrimaha soo socda kow top management shirkadihii hore waxaa afsax geeskan oo sambuuska camal u samaysan waxaa ku qoran top management oo maamulka middle management frontline people iyo customers go'aamadooda wuxuu ka imaan jiray oo badanaa kasoo dharan dhiri jiray xagga maamulka sare caaw inta jiiftaan habeenka wax ku riyoodaan ee kuleeyin shaxal waana loo waxyooday saakay laga furo shirkad shamiintada samayso kismaayo shirkad hilibka samaysana laga furo barbaro shirkad dhimale waxaas aan samayne ayaa ka keentay anaa dhax taas ilaahay bise u sugnaatay kadibna warka waa soo degdegaa maamulka sare ayaa go'aan gaaro kadib hoos u soo degdegaa kadib dadka u adeego macaamiisha sida bangi haddii la joogo tailorisk haddii la joogo jaamacad ama goob waxbarasho frontline peopleka waxaa ah dadka xafiisyada fadhiya ama macallimiinta haddii isbitaal la joogo frontline peopleka waxaa ah takhaatiirta iyo nurseska qof allaala iyo qofkii macaamiil la kulmaayo oo si joogtaa macaamiil inta ula kulmo su'aalahooda inquiries-kooda ka xalinaya ayaa waxaa loo yaqaanaa frontline people waxaan ugu hooseeya macaamiisha warkiio lasoo bisleeyey ayaa la gaaraa they have no any say macnaha wax ay ku leeyihiin shirkadaha waaga hore macaamiisha tala iyo tusaale ma ku lahayn lama tixgeli jirin lama weydii jirin waxa ay jecel yihiin lama weydii jirin xaaladooda war ma ku qanacsantihiin shirkadan war waxaan ma fiiriseen lama dhihi jirin koraa loo keeni jiray love it or leave it yeah fad haddaad rabin waa lagu fatiin waay maamulka sare ayuu warka imaan jiray barnaamijkaas waa lagu khasaaray shirkado badan ayaa ku xirmay wuxuu u noqday barnaamij khasaaray maxaa loo bedelay barnaamij kala soo baxay modern casriga maxaa ugu horeeya kor waxaa la geeyay geeskii waa la dabagediyey macaamiisha waroo dhan iyo horumaroo dhan wuxuu ka imaanaa macaamiisha ayaga ayaa ah end userka dadka wax isticmaalaya ayaga ah waa la weydiinaa customerska ayaa la weydiinaa waxaa la dhahaa maxaa rabtiin si ay jeceshihiin
taas ayaa wax badan ka imaata fiiriya customers macaamiisha ma qanacsan tihiin hadda shirkado badanaa bilowda shirkadaha isgaarsiinta oo dhan way sameeyaan inay aad laakiin weli waa ku yarta shirkad ka mid a ayaa hadda kahor waraaqad ii keenta ay dhaheen waxaan ku siinaa laba kaar aan ku siinaynaa laakiin foomkaa noo buuxbuuxi shirkadaas maanta shirkadaha kale waxbay dheertaa asking customers question su'aalo in la weydiiyo macaamiisha oo la dhaho heerka qanaacadiina ilaa intee waayo wax aad u weyn waay wax aad iyo aad u weyn waay wax sahlan maaha xitaa shirkadaha qaarkood waxaa u yaalo complaint box dadka soomaalida badanaa complaint box ilaa 3 complaint box aan furay shirkada aniga u ahay marketing manager iyo shirkada aan u ahay la taliyin qaarkood lacag ka buuxdo kuwa dibadda ka yimaada waxay u marayaan boxka meesha yaalo kii dadka sadaqada loogu bixi jiray inuu yahay marka lacag ku shubayaan ugu yaraan midaan lacag ka helin weligay ma arkin marka weydiinta kadibna yaa ku soo xigo dadkaan la kulmaya customer service team iyo dadkaasi ayaa ku soo xigo ay kan fikradaaga qaadanaa middle maamulka dhexe ama branch managementiga iyo teamka dhexe ama direct teamkaas dhexe head departmentska teamka dhexe ayaa la sameynaa kadibna ayaa loo geynaa executive levelki ayaa loo geynaa warkii korka hoos ka imaaday sida ayaa sax dadka in la weydiiyo maamulka noocaas waa because ay ka wax dhan og adiga qolab ku xiran tahay dabaq toddobaad degan tahay weliga macaamiil ma la hadlin wixii lagu keenay kaliya ayaa go'aan ku gaari kartaa laakiin haddaad adiga kor ku xiran aad tirahdid wax lee kugu soo dhacaan marka tan ayadana muhiim waaye barnaamijkan aad uu muhiim u yahay maamul ahaan iyo suuqgeyn ahaanba shirkadda inay leedahay xog aruurin aadaan ugu hadalnay jabtarka labaad xog aruurinta iyo videoga isla meesha ka heli kartaa channelka youtube-ka ka heli kartaa iyo sidoo kale jabtarka saddexaad ilaa jabtarka afaraad macnaha suuqgeynta oo dhan waxay asaaskeeda u ah in macluumaad kala aruuriyo macaamiisha ayaa asaaskeeda u ah marka meelahan dambe waxyaala yaroo iska fudud waaye waan bogsii doonaa insha allah customer perceived value macaamiisha fikradda ay ka qaadanayaan qiimeyntaas marka ugu horeyso macaamiisha waxyaalaha ay fiirinayaan waa total customer benefit war alaabtan maxaa ka faa'iida mobilkan iphone 11 ka ama iphone 12 plus ka ama iphone 13 ka iyo samsung s21 ka ama note 21 ka maxaa farq u dhexeeya waxay ku sameynayaan evaluation dhaqaale ahaan functional ahaan waxyaalahaas isticmaalkiisa customerka qiimaha iyo wuxuu isku fiirinaa had iyo jeer maxaa la dhahaa cost benefit analysis la dhahaa CBA cost benefit analysis barnaamijkaas ayuu isku fiirinaa iyo maxaan faa'iido ka hel aniga farqiga u dhexeeyo kaas ayaa qiimeynta faa'iidada free waaye waxaa bixisay $8 qiimaha oo kugu fadhiyana waa $10 markii la qiimeeyo $2 free jirto marka value maxaa waaye something extra for free haddii la dhaho number ahaan u qiimeey what is customer value maanta waxaan sheegayna macaamiisha in la qiimeeyo soomaan qiimeynta macaamiilka lacag uguma fadhiso macaamiilka very good qiimeynta macaamiilka macaamiina kamid a dukaanaa leedahay waxaad dalbatay alaab $100 noqoto adina $8 haysataa waa lagu siiyey $20 gadaal ka bixiyaa lagu dhaha saa qanaacadaada intay gaaraysa isla marka waa qanacaysaa shirkadda maxay ku siisay they give you creditkaas shirkadda qiimo uma fadhiyo beri waa soo celinaysaa same waa laakiin adiga lacag maa ku bixisay interest ma saaran maya haddii interest saaran tahay customer value bal u qiimeyn haddii laakiin tahay zero interest oo taa qardul xasan tahay alaabtan qaado maalinka lacag heshiis ka soo celi yaaba heli karo shirkadaas way ku qiimeysay isla markii maxaa ku dhacay isla markaa ku qancaysaa markaad ku qanacdina maxaa dhacay daacad ayaa noqonaysaa maxaa dhacay ka saddexaysay you become customer the company gave the customer value shirkadii macaamiilka waxay siiyeen qiimeyn in return the company get customer satisfied customerka muxuu noqday customer qanacsan and also loyal sidoo kale muxuu noqday customer
daacad u ah shirkadaas. sidoo kale marka qiimeyntaas markii la fiirinayo waxyaalo badan ayaa la fiiriyaa. waxaa ugu muhiimsan waxa la dhaho total customer benefit iyo total customer cost. alaabta qiimaheeda taleefanku hadalka ayaa qiimeynta waa monetary cost. Service benefitka maxaa waa isagana shayga ugu muhiimsan oo ah wixii loo isticmaalay time cost, personal benefit, image benefit. iPhone-ka lacag badan oo kamid ah waxaa waa psychological cost. saddexda camera oo sida dadka isku dhex taalo ayaa ah psychological cost. hadda ninkan caterpillarka gadanayo qiimaha alaabta iyo customer value fiiri $6,000 waxaa jirto oo free ayaa jirto. maxaa waaye baalkan wuxuu ku fadhiyaa 20,000 laakiin maxaa laga sii 14,000. 6,000 maxaa waaye waa alaabta qaybta qiimeynta oo lagu bixiyo. marka ninkan aad u farxa marka qofka qiime raqiis marka laga siiyo oo wax ku gato wuu farxa. marka kan maxaa waaye customer loyalty waa stepka ugu dambeeyo ee xagga suuqa. waa markii la qeex lagu dhaho ninkan waa nin waxyaalaha qeexo. Oliver ayaa qeexidan sheegay definitionkan. ardada jaamacadaha dhigto ama bara koorsooyinka master data and bachelor waa inaad definitionkan xifdisan tahay oo lagu dhihi karaa qeex. what is customer loyalty imtixaanka lagu keeni karaa badanaa markaan macalinka ahay ardada waa weydiiyaa. waa a deeply held commitment waa go-aan gaaris oo qofku wuxuu ku gaaraa inuu maqaayadan, dukaankan, balbeerigan, diyaaradan sii wad gabadhan oo qabo oo weligiis la joogo, dukaankan alaabta markasta ka gato, maqaayadna cunto ka cuno, diyaaradda markasta waa commitment go-aan. qofka meel kale ma aadayo. preferred product or service in the future despite situational influence. si kasta oo lagula hadlo xaajiga, si kastoo gabadha magaalada joogto isku tustusto ay wax uu arko ma ka tagaayo, ama marketing xayeysiin kastoo la sameeyo ma ka tagaayo. shaambada aniga 20 sano lasoo dhaafay waxaa madaxay ku dhaqdaa shaamba la dhaho head and shoulder. waxaan ku jeclaa qayb waxa ku jirta lahay anti dandruff. dandruff ayuu runta qashrada wax lahaa taasaan jeclaa aniga aad u isticmaalaa. marka wax kastoo haddaan arko head and shoulder oo xagga taalo lagama yaabo inaan gadanayo doof ama bantiin ama magacaarta u bixi ayada le daacadan u ah. xayeysiin kastoo la sameeyo marka gadanaa coca-cola iyo pepsi ana markasta waxaan jeclaa pepsi aan jeclaa. si kasta oo coca-cola loo xayeysiiyo haddii waddanka dhan oolin xataa halka mar oo arko waxaan ku cabaa anoo aad u faraxsanaan cabaa. ma fahamta shaah iyo qaxwo shaah haddaan helo daacadan u ah. dukaamada shirkadaha saasoo kale waa supermarketyo badan jirto gabdhaha xaafadaha dhowr dukaan xaafadda ku yaal laakiin waxay ka adeegataa wiil farxaan la dhaho maxaa wiilkaas deynuu siiyaa waa u qoslaa wuu fiican yahay. laakiin dhowr dukaanoo kalea loo sheegay alla dukaan kasta ka raqiisa ma aadayso maxaa yeele daacaday u tahay loyal waay daacadnimo. wax kasta oo dhaco xisbiga siyaasadda aad u codaysay wax kasta oo dhaco xisbigiisu maka bahayo maxaa yeelay xisbigan asaa marka hore tusay, dukaankaa marka hore asaa tusay, gabadhan ayadaa ninka heerkan gaarsiisay. wax kasta oo dhac maka leexanayo. marka hore maxaa waaye qofka soo kuu noqdo daacad waxaa ka horta inuu ku qanco waxaana ka horeysa inaad qiimaysid. switching behavior qofkiina wax ka tago wax hadda for example qofaa waxaa dhici karta internetka wuxuu isticmaalaa magaalada hadda muqdisho 3 shirkado internetka bixiso inkastoo loo shirkado is leeyihiin laakiin 3 shirkado ayaa bixiso oo kala duwan somnet, somtel iyo hormuud. ma sahlan tahay adigoo 5 sano ama 3 sano ugu dambaysa isticmaalaysa somnet ama somtel. dadka hadda caadi loo kala duwan yahay. qofka somtel isticmaalo ma laga yaabo inuu aad maxaa ma fahmayo futuriska u fahmeen bini customer ma sahlan. shirkad inaad ka fiiri hadda anaga ma Soomaaliya hadda mobile laba sim kaarka yaal adduunka laakiin waa qofka heer inta la gaarsiiyo oo sim kaarka iska tuur sim kaarka la qaadana oo numberkiisa dhan dhinaca oo ka guuraa. value proposition safety other benefits good performance designs satisfaction tan waa ka darajo hooseysa. tii hadda aan soo arkayna ayaa ahayd ultimate goal meesha ugu dambayso alghaaya
تسويق قدن ماركتينج قدن هدي لو ويدي عربي هان لو ويدي أقوله ما هي غاية التسويق محل هذا غاية التسويق قدرا أو قدم بيسو أما هدف قدم بيو ماركتينج اللي what is the ultimate goal of marketing وحل هذا customer loyalty حدد أنت سو customer loyalty أدهستي if your customers are loyal to you ما كي customer كحكو جعليهين أي ضاعت كويهين أي كوجة جبيهين أو واحد كستو أو عايسن كاجورين then you have a business markasa business le aad haysataa satisfaction a person feeling of pressure of disappointment that result from comparing a product's perceived performance to or outcome to expectations tanna maxaa waa laba shay la kala jaraa labada shay la kala jaraayo maxaa waaye expectation minus performance waxaa lagu sheegay waxaa lagu dhahaa isbitaal hebel isbitaalkaas ayaa waxaa lagu sheegay idaacadda ka dhageysta baabuurka adoo saaran ama mobile ka aad haysiin waxaa joogta dhakhaatiir ajaanib meesha tagta albaabka ka galaysa dhiiga ku daadsan waxaa aragtay ninka oo hospital managerka oo ciidamada madaxa ugu duubanta dadka bukaanka mar banac warta dadka dhanka darafa hebel kaale ma sug sug adi inta fadhiso telefoon u soo dhacay meeshii dhan waxaa shak kaa galay inaad dekada joogtid ina hospital joogtid qanaac expectation ka marka idaacadda ama xayeysiinta dhageysatay waxay 100 performance-gii meeshan muxuu noqday performance-gii meeshan wuxuu noqday wuxuu noqday 80 ama wuxuu noqday 60 afartankaas maxaa waaye dissatisfaction waa macaamilkaas baqancay dhanka kale maqaayada lagu dhahay maqaayadaas inuu iska xaaladeedu waa iska qof safray inuu safray inta taga wallahi dad magaalada ka baxayd maqaayada fiican meesha ku taalo laakiin marka ceelash biyaha maraysid maqaayada meesha ku taala taas kaga leexo adoo expectation kaaga waa iska 60 you never expecting a lot wax badan ma ka filaysid maqaayad iska lagu dhahay iska ergaas dil raaci bis waa mugto iska tag laakiin the performance is different waxaa lagu keen muufa kulul kalaankal macsar maqaayad nadiif waxa dhan waxa ka daran the price alaabta qiimaheeda cuntada waxa markaa dhamaan u dhahay $2 iska bixi the performance exceeded performance muxuu ka badan yahay the expectation then you will be satisfied that's the nature of the customers in the world the qanaac macaamiisha falsafadooda noocaas waa inta aysan imaanin ka hor to your doorstep inta aysan albaabka kaa soo galin ka hor they expecting something waxbay qiyaasayaan waxbay filayaan waxaasi ay filayaan ama way helayaan ama way waynayaan haddii waayaan yaa weylag ku dhamaatay marka you never dad maxaa la don't promise a lot wax badan ha dadka u sheegin don't over ha samayn advertisement wax badan ha ballanqaad badan ha samayn dadka wax badan ha u sheegin haddaa dadka wax badan u sheegtid haddaa dadka wax badan u ballanqaadid maxaa dhacayo then they are expecting a lot from you wax badan ayay kaa filayaan haddii ay kala duwanaato filashada iyo dhabta maxaa dhacaa soomaalida maxay dhahaan gabadha been waa lagu soo xerogeliyaa run waa lagu dhaqaa beenta lagu soo xerogelinaya maxaa waa expectation runta lagu dhaqaayana maxaa waa performance maxaa dhacaya marka from the first night waxa dhacayaba furin she is dissatisfied ninka muxuu leeyahay laba markaba waxa ay soo dagaysa bur telefoonno beena riwaayada lagu keeno waxa leeyahay gabadhan u tagrabaaye wax yar ka bacdi soo wac mida meel fadhi marka wax yar ka bacdi ninka markuu gabadha u tagaba soo waca war hebel isug adiga waxa waaye maanta mashquul ah gabadha waxay leedahay waa ware today you are meeting with a boss waxaa la joogtaa maanta boss marle ani kan calaf niga dhig taa rabbiyo laakiin markuu guriga tago screwed waxa waaye balaay meel fadhiso everything is different wax kasta waa duway fadhi qurux badan meesha yaala usbuuc ka bacdi baawura banaanka soo istaagayo wuxuu leeyahay fadhiga maxaa waa la qaadaa intee qaadi fadhi anaas kale waxaa leedahay mal tabalo ahay fadhiga tabalo ahay wixii kale meelaha yaalyaalan maxaa soo haraay reality yaa soo haraay marka maqaayadaad aad filayso maqaayadaha xayeysiinta diyaaradaha jaamacadaha magac weyn leh waxyaalahaas nacashka maanta aada u dheeraanay marka waa kana macaamiisha ama waxay noqonayaan dissatisfied ama waxay noqon satisfied delighted macnaha waa aada usii farxayaano
expectation ma joogtino expectation dhanka hadduu ku noqdo qofkan gabadhan waxay ka filaysaa ninkan 10 inuu noqdo expectation was 10 and the performance was 10 she's satisfied firi inuu qofka xataa qanaacada wax fiican wallahi waa iska qanacsana maxaa sameynayna yarka taas ma rabo waa ku faraxsanahay ayaa la rabaa I am delighted aniga waa kuwa la rabaa then she become a loyal to you markaas kadib ay noqonaysaa loyal markaas kadib ayay daacad ku noqonaysaa otherwise she will look around customer expectation previous purchase finance advice marketers waxyaala qofka oo inta wakan warbixinta qof oo war maalin dhaweyd anakoo badan hadda kahor maqaayadaan tegi jirnay oo dadkeena ka imaada Hindiya iyo Pakistan iyo meelahaas Asia Thailand Malaysia dadka imaado dhan Bangladesh waxaan jeclaan cuntada oo spicy ah marka qofaa tagay din friends advice wuxuu dhahay dhankaas daatiin waxaa tagtay meesha maalmihii hore waa tagnay cuntada si loogu talagal waa odayaasha magaalada Muqdisho joogto badanaa ma jecel cuntada cusbada badan basbaaska badan balaayada jinne spicy-ga iyo lagu daraayo baharaadka ma jeclo kadib waxaa mal rabo hilibka biyaha lagu karinay loo baahan ninkan this guy lacag loo rabaa waa joojiyey maqaayad maalinta dab ani asxaaban soo watay albaabka waxaa ku dhagan sticker waa joojinay cuntada basbaaska يا أخي هدي أنا بس كسل ماشان لو سؤال هذا سمع الناس لو كانت ضعيفة جعل توبي مدكون ولا مقدشوا ما مقاعد ضعيفة ولا الدوح أركي أي واجد جنا عم ضعيفة إيه أنت عايزين قدر أناك سوريين مركب ما عندها عيا your expectations friends advices your competitors marketers كحيالي monitoring customer satisfaction إن عبر له بهاي يجر سنة كستو بريش شركة قارك شركة أوجهين وحيس ما يساعد سنة كستو كحيل جانو كلا جارو iyo gobolada Soomaaliya dhan waxay u tahay guddi oo warbixinta soo aruursha si ay u dejiyaan qorshaha sanadka cusub ayay dejiyaan qorshaha sanadka cusub wixii maahan inta meel dabaq korkiis AC isku soo xirtid oo shaah iyo dalbatid buskud iyo kafee aad tiraahdo 2022 aan dejinaa qorshihiisa ma la rabo wax xog ina aruurisid taas ina xogta aan ku laabto mar xogta waxay ka imaataa qanaaca la'aanta macaamiisha customer complaints boxka ina soo aruurid influence of customer satisfaction مع measurement techniques marka cashirka waa dheeraaday marka intaana ku joojinaa insha Allah caawa chapter kan laba part si chapter 1 amal noqday part 2 asagan u sameyn doonaa bila tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u mahadsantihiin dhegeysigii intaad dhamayseen waxaan jeclaan lahaa haddaad dhamayseen cashirka saan u dhegeysateen inaad comment ii reebtaan oo saan ula socdo dhiirigelin iyo commentigeena ii siinaysaa oo inay ila socotaan ayaan ogaanaa insha Allah si aan casharada u sii wado ama santiin bila tawfiiq assalaamu calaykum part 2 oo chapter 5 ah ayaan oo baranaa